waxaan soo gabagabeynay shirkii isla xisaabtanka ee afarta tobood oo dalku leeyahay oo maanta aan isla meel dhignay maxaa noo qabsoomay maxaa noo qabsoomin xagee baan taaganahay xagee baan rabnaa inaan u dhaqaaqno labada sano soo socota sababta aan marka tubo u leenahay macnaheedu waxay tahay inaan ognahay jidka aan marayno wadiiqadeenu waxa ay tahay dhabaha aan marayno waxa yaala dushiisu sida ay tahay waxaan isla garanay inaan kulligeen ku wada socono hal dariiq waxaan isla fahanay dhagxaanta iyo godadka naga horeeya waxaan dhegaysanay heesihii ay bilaabeen walaalaheen horseed markii aan shaqada bilownay waxaan qaadanay inaan jidka tubaha ah oon ku shaqaynayno aan iska jirno waxaan maanta isla meel dhignay inaan leenahay qorshe ama hab aan u jeexnay inaan ku fulino howlo aan ujeeddadeeda ka midaysannahay waxaan isla garanay kulligeen inaan ka dhabaynayno himilooyinkii lagu doortay madaxweynaha waxaan isla garanay qaab cusub oo ah abaabul shaqo abaabulkaas shaqo waxa uu yahay marka ay dowladdeenu leedahay tubta dhaqaalaha iyo tubta arrimaha bulshada iyo tubta siyaasadda loo dhan yahay tubta amniga iyo cadaaladda oo usbuuc walba ay isugu yimaadaan wasaarad walba iyo hay-ad walba oo dalkan ka shaqaysa mid waliba uu fadhiyo usbuucaas shirka inta aanu imaan shirka golaha wasiirada mid waliba ay leedahay halbeegaasna ay ka ratibmaan shaqooyinkaasna ay daba galaan wasaaradaha iyo wiilashii iyo gabdhihii halkan soo istaagay la og yahay qof waliba waxa laga rabo markay soo dhammaato wakhtiga naloo igmaday waxay markhaati ka tahay inuu dalku galay dhaqan cusub oo shaqo dhaqankaas cusub oo shaqo ayaa waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaanay dhihin waan idinku taageersannahay laakiin waxaan rabnaa inay iyaguna nagula xisaabtamaan maadaama aan nahay shaqaalihii iyaga u shaqaynaya inteenna halkan joogta oo wasiir iyo ra'iisul wasaare ku-xigeen leh ra'iisul wasaare iyo madaxweyne leh waxaana la ka rabaa ugu yaraan inaan aqbalno in ammaanadaas ay noo dhiibteen aan u xafidno waxaan idin ballan qaadaynaa in walba oo dadaalkeenu yahay inaanan ka hakran shacabka Soomaaliyeed haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa marka inaan dadka Soomaaliyeed u sheego hal eray oo ah Allah u naxariistee mid ka mid ah wariyaashii dalkan soo maray kii ugu fiicnaa kuwii ahaa mid ah cawil ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo eheladii uu ka geeriyoodana samir iyo iimaan Allah ka siiyo oo runtii ka shaqaynayay sidii dib loogu yegleeli lahaa qarannimo Soomaaliyeed ayaa wuxuu yiri marka aan arrinta Soomaaliya wax ka taabto Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay qof walba oo Soomaaliyeed oo nool oo xay ah oo neefsanaya wuxuu yiri Soomaaliya waxay u baahan tahay qof kasta oo neefsanaya waayo wuxuu lahaa waxay soo martay dhib badan wuxuu noo sheegay Soomaaliya inay sakaraaday inaanay u baahnayn in la sakaraad dileeyo in qof walbo damiir leh uu indhaha kala qaado uu yiraahdo anaa u hiilinayo dalkayga si dalka aan ugu munaafacaadsanno marka hore waa inaan u gurmanaa isaga ayuu yiri cawil Allah u naxariista
wuxuu yidhi 10 qofood ama 30 qofood oo Soomaali ah oo talo loo dhiibay keligood waxba ma qaban karaan waa in lala qabtaa wuxuu inoo sheegay hadalkiisu waxa uu ahaa qof kasta wuxuu u baahan yahay inuu biyo helo inuu cunto helo inuu hoy helo inuu wuxuu huwado dhara helo inuu amni helo inuu dawo helo sida aad intaas ugu baahan tahay haddii aad dareensan tahay waxay ka dhigneed tilmaanta cawil allah u naxariistee lama heli kara intaa haddii aanad dawlad helin